gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdi Khayr Dirir weeliyay suduwa wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashiid Maxamed Bootan Cabdirashiid Ligan iyo waliba tiimamka ka shaqeynaya caafimaadka xoolaha ayaa saaka lagu daafuray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ugu horeeyna waxa halkaasi ka hadlay oo ka waramay tiimamka ka howlgalaya caafimaadka xoolaha nool ee gobolka Sool isuduwa wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Sool maanta waxaan u kala baxaynaa halkan joognaa waa xaruntii gobolka Sool tiimamkii xanaanada xoolaha ayaa halkan idin taagan waa 5 tiim 5 tiim waxay wadaan laba vaccination ama laba talaal oo xanuunkan leeyahay BBR-ka ama susumka reer Laascaanood ay yaqaaniin jadeecada xanuunka talaalkiisa waa wadnaa waxaan kaloo wadnaa furqiidaha iyo riyaha labada talaalba waan sidnaa waxa kaloo inta dheer daaweyn xanuunada xoolaha ku dhaca haday caalka tahay haday qufac tahay haday xanuunada kale tahay dhammaan intaana waa daweynayna dawadaasuna waa dheer tahay waxa kaloo dheer fitamiinadii muddada lagu jirayaana waa muddo 2 bilood 60 cisho biri maalinta khamiista maanta khamiisa bay tiimamkaas kala baxayaan birisin waliba ugu ciido meeshuu ka shaqo tagi lahaa haday xudun tahay iyo haday tahay ka taleex aadaya iyo haday tahay kala beeraadaya nin waliba meeshuu ka shaqo tagi lahaa ayuu tagaya baantana sida lagu kala caraabaya dadweynaha reer Laascaanood ama gobolka Sool ee dhammaan xoolo dhaqatada ah waxaanu leenahay waqti waana soo maray waxa weeye waxaan horeen buu ahaa waxa si fiican maanta in laga faa'iideysto jaaniska laga faa'iideysto haday talaal tahay haday daaweyn tahay dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee guryaha idinku imaanaysa in walba aagiisa ugu imaanaysana in maxay ahaydey aad soo dhaweysaan aad la shaqaysaan aad u fududeysaan hawsha ay wataan ee daaweynta iyo talaalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabagabadii gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdi Khayr Dirir ayaa uga mahad celiyay wasaaradda xanaanada xoolaha sida ay ugu dadaalayso caafimaadinta xoolaha dalka gaar ahaan kuwa gobolka Sool wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Sool Dr. Cabdirashiid waxa saaka halkan aanu ka diranaa ama ka ambabaxaya 5 tiim oo kamid ah tiimamkii ka shaqeyn lahaa daaweynta xoolaha ama talaalka xoolaha waxay sidaan talaalkii xoolaha oo ah jadeecadii iyo hadii Ilaahay ku roon yahay furqi waxay kula sidaan fitamiinka lagu kaabi lahaa awoodda xoolaha maadaama ay soo mareen abaar baahsan waxa kale oo dhinaca socota iyaduna daaweyn ah xanuunada lagu arko xilliga lagu jiro shaqaduna waxay socon doontaa muddo 2 bilood hadii Ilaahay yiraahdo waxaynu kala ka bixi doonaa 5 aag oo kamid ah gobolkan Sool oo ayna kamid tahay magaalada Caynaba waxaan leeyahay oo kula dardaarmayaa tiimamka ama shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha inay shaqadooda sidii waajibaadku qaranku ay u gutaan in sidii loogu talagalay inay xooluhu u gaaraan talaalku ama xoolihii loogu talagalay inay taabtaan tir ahaan ay gaaraan oo uga faa'iideeyaan muddada 2 bilood ee talaalkaas soconayo shacabka gobolka Sool qaasatan dadka reer miyiga ay loo tagi doonaan waxaan leenahay maadaama guriyihiin la idinku imanayo maadaama la idinku imanayo xoolashii ay xooluhu ka cabayeen maadaama la idinku imanayo barkadihii laga waraabinayay horidinkuna ka faa'iideysta jaaniskaas oo xoolaha u diyaar gareeyay in la talaalo iyo in la daweeyo in fitamiinka la siiyo waa jaanis qaaliya hanti fara badan iyo dhaqaale fara badan iyo budget fara badan baa ku baxay wax sahlan ma aha in la helo talaal bilaasha waxaan leenahay waa ka warhaynaa hawsha aad qaranka u hayso iyo gobolka u hayso adiguna waxaan ku faranaa inaad kormeer ku marto si aad u xaqiijiso shaqadii sida loogu talagalay howlgalkan ayaa socon doona muddo 60 maalmood oo guud ahaan lagu caafimaadinayo xoolaha nool lagaga daweynayo cudurrada ku dhaca xoolaha Barkhad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.